kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa xusay inay xoojinayaan dalabkooda Paul Pogba. Real Madrid ayaa doonaysa inay soo gabagabayso qorshaha cusub ee ku aadan Kylian Mbappe. maamulka kooxda kubadda cagta Sassuolo oo gabi ahaanba sheegtay inay iska fasaxi doonaan laacibkooda Locatelli. iyo Liverpool oo shaaca ka qaaday inay la soo wareegi doonto xidiga qadka dhexe ee West Brom Matheus Pereira. maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waqtiga kan xaadirka u dhaqaaqaya laacibka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland. kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa xusay inay xoojinayaan dalabkooda Paul Pogba. kooxda ka dhisan horyaalka ligwanka dalka Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa doonaysa inay xoojiyaan dalabka ku aadan laacibka qadka dhexe Manchester United ee Paul Pogba. warbaahinada qaar ayaana xusaya in waqtiga kan xaadirka wiilka reer France ee Paul Pogba ay u muuqan karto inuu isaga dhaqaaqi doono istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United kadib markii tababaraha United-ka macallin Ole Gunnar Solskjaer uu sheegay inuu ka dhaadhicin doono wiilka reer France inuu ku sii nagaado xilli ciyaareedka cusub istaadiyaha Old Trafford. labadii toddobaad ugu dambeysay ayaa laacibkani Paul Pogba waxa aad loola xiriirinayay sida Juventus iyo Real Madrid. laakiin kooxda kubadda cagta PSG ayaa waqtiga kan xaadirka xoojinaysa inay laacibkaasi Paul Pogba ay geeyaan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska si ay ugu xoojiyaan kooxdooda maadaama maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee PSG Nasser Al-Khelaifi uu wado qorshe uu doonayo in uu sicir barar xoogan ku rido suuqa kaliibsiga xilli ciyaareedkani waxaana hadda uu kooxda kubadda cagta PSG u horseeday inay ku soo guuleystaan xidiga aad u fara badan sida laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Capitano Sergio Ramos iyo laacibka kooxda Inter Milan ee Hakimi. isbedel xoogan ay kooxda kubadda cagta PSG damacsan tahay ayadoo Paul Pogba ay doonayaan inay ku garaacaan saxiixiisa sida Juventus iyo Real Madrid. Real Madrid ayaa doonaysa inay soo gabagabayso qorshaha cusub ee ku aadan Kylian Mbappe. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qorshe cusub u maleegaysa ciyaaraanka da'da yar ee kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe waxaana ay doonayaanba fursad xoogan in ciyaaraankaasi ay ka heli doonaan xilli ciyaareedkani. Kylian Mbappe ayaa guud ahaanba diidan inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. agaasimaha kooxda kubadda cagta PSG Leonardo ayaa shalay gelinkii dambe xusay inay waqtiga kan xaadirka ay ku holan yihiin maamulka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain fursad ay kaga dhaadhicinayaan in Mbappe uu ku sii nagaado magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska. laakiin shakhsiyan laacibkan u dhashay dalkaasi Faransiiska Mbappe ayaa aad u xiiseynaya xiriirka ay la sameynayaan labada kooxood ee Real Madrid iyo Liverpool. laakiin kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa fursad u aragta waqtiga kan xaadirka inay gacanta ku soo dhigi doonaan agaasimihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Monaco ka oo lagu magacaabo Campos waxaana ay doonayaan in uu yahay shakhsi kaliya u soo gacan gelin kara Kylian Mbappe maadaama agaasimihii hore ee kooxda kubadda cagta Monaco ay waqti wacan soo wada qaateen intii Kylian Mbappe uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Monaco. Campos ayaa guud ahaanba isaga dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Lille bishii December waxaana kooxda kubadda cagta Real Madrid ay doonaysaa inay fursada kaliya ay ku heli karto xidigaasi Kylian Mbappe ay tahay marka hore inay u adeegsadaan agaasimihiisa hore ee Campos oo marka la sheegay in xiriir dhow ay leeyihiin Kylian Mbappe. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa sidoo kale sheegay in waqtiga kan xaadirka fursada kaliya ee u banaan kooxda kubadda cagta Real Madrid inay tahay in marka la xoojiyo qorshaha cusub ee lagu doonayo in ciyaaraankaasi Mbappe lagu soo xirigeliyo waqtiga kan xaadirka garoonka Santiago Bernabeu. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa heshiis shaqsi la gaartay difaaca kooxda Brighton ee Ben White sida laga soo xigtay Daily Star. Arsenal ayaa waqtigan ku jirta qorshihii ay kula soo wareegi lahayd heshiiska Ben White maadaama laacibka uu diyaar u yahay inuu isaga tago kooxdiisa. maamulaha kooxda Arsenal ayaa aad ula dhacsan qaab ciyaareedka Ben White. Arsenal ayaa rajo fiican ka qabta inay ku soo guuleysan doonto xilli ciyaareedkani xidiga rugcadaaga ah ee Ben White. maamulka kooxda kubadda cagta Sassuolo oo gabi ahaanba sheegtay inay iska fasaxi doonaan laacibkooda Locatelli. kooxda reer Talyaani ee Sassuolo ayaa xaqiijisay inay u muuqan karto guud ahaanba inay fasaxi doonaan xidigooda Locatelli. laacibkani ayaana u muuqan kara mid guud ahaanba u dhaqaaqi doono horyaalka wadankaasi Ingiriiska Premier League sida goal.com ay shaacisay. Manuel Locatelli ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub
ay u dhawaaqanayeenba in ciyaaryahankaas uu kasoo dhaqaaqo horyaalka dalka Talyaaniga. wararka qaar warbaahinta Talyaaniga waxa ay xusayaan in ciyaaryahankani uu u dhow yahay ku biirista kooxda kubadda cagta Piagnere Juventus. sida ay daawacday jirada Sky Italian waxaa la xusayaa in ciyaaryahankani Locatelli shakhsiyanba uu aad u doonayo ku biirista kooxda kubadda cagta ee Juventus. laakiin waxaa la fahansan yahay in maamulka kooxda kubadda cagta ee Sassuolo in ay u gacan gelin doonaan koox ka banaanka ah horyaalka dalka Talyaaniga waxaana ay u muuqan kartaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waqtiga kan xaadirka u dhaqaaqaya laacibka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland. kooxda Chelsea ayaa rumaysan inay si wanaagsan ula xaajoon doonto laacibka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland maadaama ay maamulka Chelsea aysan awoodin in ay qasnadooda ka bixiyaan adduun dhan 200 milyan oo lagu fasixi karo gool dhaliyaha ee Haaland balse dhawaan ayay kooxda Chelsea shaacisay inay laacibkani kooxda Borussia Dortmund u soo bandhigi doonto adduun dhan 150 milyan si ay u helaan ninka sanadahani hadal hayntiisa dunida qabsatay ee Erling Haaland xilli ciyaareedkani. xidiga Haaland ayaa la arkaa inuu yahay weeraryahanka ugu khatarta badan tartamada qaaradda Yurub ee waqtigani. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waqtiga kan xaadirka u dhaqaaqaysa xidiga qadka dhexe ee West Brom Matheus Pereira. tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp ayaana xusaya in ay kooxda kubadda cagta Liverpool muhiim tahay waqtiga kan xaadirka inay u dhaqaaqaan ciyaaryahankaasi in la doonayo in lagu buuxiyo booskii dhawaan uu ka faaruqay laacibka Wijnaldum ee u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska. xidigani ayaana markaa lagu magacaabaa inuu yahay isbedel doonka ee kooxda kubadda cagta West Bromwich waxaana hadda la xusayaa in Liverpool ay diyaar u tahay inay xoojiso dalabkaasi maadaama uu wali uu ka banaan yahay booska Wijnaldum taa oo la sheegay in ciyaaryahankaasi ilaa iyo hadda bedelkiisa inaysan ku soo guuleysanin kooxda kubadda cagta ee Liverpool. maamulka kooxda kubadda cagta West Brom waxa ay xusayaan in ciiraankooda Matheus Pereira uu yahay xidigaha ugu muhiimsan waqtiga kan xaadirka kooxda ka dhex muuqda laakiin shakhsiyan waxa la soo warinayaa inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka dhaqaaqo kooxdiisa xilli ciyaareedkani.